ugu horeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciddii shirkan hindistay iyo ciddii ka shaqaysay ee u badan yihiin dhallinyaradan ee soo qabaqaabisay oo runtii waxtarkiisa uu inoo muuqdo inaynu ka faa'iidaysanno wixii aynu halkan aqoon iyo khibradba kala qaadanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waynu soo jeedinay banaanadii baa lagaga hadlay wixii caqabado iyo fursadaba inoo jiray waanay soo bandhigi doonaa insha allahu marka u dambaysa laakiin waxaan yar ku darsanayaa ganacsatada runtii dunida maanta dhibta ka taagan aynu ognahay ganacsatada somalilan fursad iyo jaanis wanaagsan bay ka qaadatay inaan dalkeennu marnaba goodoomin oo haddii ay covid-19 tahay iyo haddii ay dagaalada Ukraine ka dhacay tahay intaba ganacsatadeenna waliba kuwa waaweyn ee keena raashinka ama dawooyinka ama qalbayada daruuriga ah inay ka faa'iideystaan inaanay nagu dhicin dhibaato aynu muxuu ahaa ku go'doonno aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaalka badan ee ganacsatadu samaysay sixir bararku wuu iska imanayaa dee duruuftii dunida oo dhan buu ka taagan yahay laakiin waxa weeye muhiimaddu in wax la helaabay ahayd waanay ku guulaysteen runtii wayna la jaan qaadeen dhibtaa dunida ka dhacday haddii aynu dib isu xasuusino mursiyadii somalilan abwaan xasan gani baa wuxuu yidhi musiibadu iyada adduunka u macallina marka ay dhibaata timaado ayaa laga fakirayaa in xal la helo waxaynu la kulannay dhibaatooyin badan oo dunida ka dhacay kuwaasaana inagu kalifaya inaynu isaga nimaadno shirkana runtii wuxuu ku soo beegmay wakhtiga ah ganacsatada wax badan bay qabteen wax badanna way u dhiman yihiin waxaan isleeyahay dunida commercial recognition baynu ka helay hadday tahay dowladdu waxyaabaha ay fulisay ee ah inaynu cilaaqaad la yeelanno diyaaradaha caalamka oo ay dunida muxuu ahaa hargeysa iyo maanta muxuu ahaa afar flight international inoo yimaadaan ganacsatadu iyadoo aan ictiraaf haysan iyo baanan caalami ah ayay intooda iyo baanankooda waxay gaadhsiiyeen inaynu dhammaan adduunyada meesha aynu wax ka soo iibsanaba aynu ku furanno ama TT ama letter of credit aynu ku helno ayay ganacsatadu fulisay waxyaabaha ugu badan ee ganacsatada maanta ka dhiman inay hesho oo dowlad iyo shacbiba ay isugu yimaadaan waxa weeye halkana laga sheegay waa marketing access haddii aynaan taa helin oo dunida waxaynu keenno iyo waxaynu dhoofinayno midnaba aynu weyno shahaadooyinka caalamiga ah ama kuwa caafimaadka ah waxay imanaysaa inaynu halkaa dhaafi weyno waxaan soo jeedinayaa iyadoo wakhtigu yar yahay dunida maadaama aynaan ictiraaf dawliya haysan inaynu innaga iyo ganacsatada iyo dowladdu barnaamijka la yidhahdo triple B-ga xoogga saarto oo aynu wada yeelanno oo ay dowladduna badda iyo dhulkaba xorayso oo ay ganacsatadu fursad ku hesho inay investment kaga qayb gasho oo ay maal gashato waxaan u mahadnaqayaa dowladda waan uga mahadnaqayaa qaybta industriga waxyaabaha ay tarto oo ka mid aha cashuur dhaafka waxaase ka dhiman waxyaabaha aynu dhoofinno oo isaguna u baahan in la mideeyo dowladda wada shaqaynteeda oo dowladaha hoose iyo dowladaha dhexe cashuurta ay qaadaan oo caqabad weyn ku ah wixii aynu export ku samayn lahayn iyadana in la mideeyo ayaan soo jeedin lahaa runtii wakhtigu waa gabagabo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa cidda fadhida iyo ciddii khibrada ahayd ee halkan wax ka kordhisay wakhti badan ka qaadi maayo